haddii aad kaga hor istaagaysaan shaar dawladeed iyo waxaynan garanayn deeshaqa uu kaaga sheekayn doona war waxaan ka daayay war ka daayay soorta wadadii saxda ahayd lagu soo celiyaan leeyahay haddii maxamed xasan ismaaciil sharbiyare laga dhigi waayo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta soolja laga dhigi waayo adar way tashanayaan meel bay tagayaan laga doonayo meel bay tagayaan laga soo dhaweynayo maxamed xasan ismaaciil haddii uu tartan xalaal ah kaga qayb gali waayo doorashada gudoomiyaha maxamed meel kale oo gaar ah ayuu kaga qayb galayaa doorashada gudoomiyaha ama meel gaar oo la og yahay ayuu gudoomiye ka noqon doonaa gaariye alla naxariisto waxa laga hayaa gabigiisii ahaa dhalaarba ima doonta dadka Soomaaliya awooda dega raadcud adkaato ilis lagu raasho sool waa la waayay way tagtay awdal maanta waxa muuqatay faaladii gabigii gaariye ahaa waxaan isla garanay in gabi ahaanba aan diidno ama aan ka soo horjeedno doorashada ururkaasi ay faragelinta xukuumaddu ku hayso warbaahinta gobolka Awdal oo kulan warbaahineed iskugu timidaya maanta waxay si cad u bayaamiyeen go'aankoodii ka badambaysta ee ku aadanaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja taas oo uu sharaxan yahay saxafi kamid ah wariyaasha gobolka Awdal Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare kulankan ay warbaahintu iskugu yimaadeen ayaa waxay ka soo saareen qodobo kala duwan waxana hadaladoodii kamid ahaa anagoo ah warbaahinta kala duwan ee gobolka Awdal waxaanu maanta halkan u soo istaagnay go'aan masiiriya oo ay gaadheen qaybaha kala duwan ee warbaahinta gobolka Awdal kaasoo ku aadan doorashada hoggaanka ururka saxaafadda Soomaaliland ee Soolja oo gabi ahaanba la sheegay inay xukuumaddu faragelin xooggan ay ku hayso haddii ay tahay xubnaha hoggaanka saddexda ah ee gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha guud ee ururka saxaafadda Soomaaliland saddexdaasiba nin ay calaamadaysan yihiin haddii aan nahay warbaahinta gobolka Awdal ma aqbalayno wax ka yar gudoomiye maxamed xasan ismaaciil Sharbiyare wuxuu ku yimid rabitaanka warbaahinta kala duwan ee gobolka Awdal haddii aad awalna loo tirinayay gudoomiyaha ururka saxaafadda Soomaaliland ee Soolja Sakariye wuxuu ahaa mid ku yimid rabitaanka cid gaara ama xubnaha cidda gaarka ah ee loo calaamadeeyo Soomaaliland cidda haysata waliba madaxweynaha iyo xubnaha hoggaanka xariirta ah ee golaha wasiiradu ay u badan yihiin waxaan leenahay warbaahinta gobolka Awdal sinaba ma aqbalayso inay gudoomiye ku-xigeen iyo wax ka hooseeya inay qaadato ma aqbalayno waxaan u soo jeedinayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee saxaafadda Soomaaliland iyo guud ahaanba dadka daneeya wada lahaashaha Soomaaliland ururka saxaafadda ee Soomaaliland awal waxa wada lahaa oo lagu eedeynaya inay wada leeyihiin lagu tilmaamay baan u jeedaa dhammaanba warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland la yacado ilaa min laascaanood warbaahinteedii maanta ina lama joogaan oo nin walba halka uu ku sugan yahay waynu ognahay maanta waxa iskugu soo haray waa reer Awdal iyo cidda gaarka ah ee Soomaaliland lahaashaheeda loo tiriyo war waxaan idinku baaqaynaa war faragelinta ah laga daayo maxamed xasan ismaaciil haddii uu tartan xalaal ah kaga qayb gali waayo doorashada gudoomiyaha maxamed meel kale oo gaar ah ayuu kaga qayb galayaa doorashada gudoomiyaha ama meel gaar oo la og yahay ayuu gudoomiye ka noqon doonaa waxaan leenahay dhammaanba xubnaha boardka ee ururka Soolja Awdal kolka horeba Soolja way ka sii qatanayd ururka saxaafadda Soomaalilandna way ka qatanayd oo 16 xubnood hal xubin bay ku lahaayeen ururka qareenada Soomaalilandna waa la garanayaa ee Soolja cidda u badan waxaan ku leenahayna waa loo yahay ururka dhalinyarta Soomaaliland ee Soonyo waa la garanayaa reer Awdal halkay ka taagan yihiin golaha wasiirada iyo baarlamaanka cid baaba loo tiriyaa war wada lahaashaha Soomaaliland si uu ku qurux badnaado quruxdii maanta reer Awdal quruxdii Soomaaliland qayb baa maqan qaybta labaadna waariyaan la tuurin baan leenahay ragga xukuumadda ku jira ee wasiirada sheeganaya ka soo jeeda beesha dhaxa waxaan leeyahay adar doonistiina iyo damiciina socon maysa mar walba in la qaato campaign adag baad ku jirtaan oo waan idin ognahay dardar culus baad ku jirtaan oo waanu idin ognahay gudoomiyaha iyo xogayaha waxaad rabtaan niman reerkiina ka soo jeeda iyo dadyow reerkiina ka soo jeeda inaad siisaan oo gudoomiye ku-xigeenkana aad siisaan nin reer Awdal oo magaca Gadabuursi wata adeer taa idinka yeelimayno reer Awdal iyo beesha Gadabuursi waxyaabo badan bay idinka qaateen way ilbixeen wixii waa laga yimid waa laga tagay waa la isbartay guriga fadhigiisa waa la iskugu imiday manafacaadkiina maanta wuxuu marayaa adeer inoo wada qaybiya haddaanan wada qaybintaasi soconayn meesha waan ku kala tagaynaa waxaanu idinka qaadanaynaa ma jirto doonistiina iyo damiciina reer Awdal halkan
ka qaadan mahayaan mid labaadna waan idin leeyahay Soomaaliland quruxdeedu waxay ku jirtaa meesha nin raashiq saxaq joogo waa inuu nin samaroon isaguna mideeyaa ku xigeen macna uu sameeynaya ma jirto waynu isla ognahay tiiba halkan aad wadaan tii way diideen reer awdal warbaahinta gobolka oo maanta halkan ku dhanna doonistoodu waxay tahay haddii Maxamed Xasan Ismaaciil Shirbiyo laga dhigi waayo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja laga dhigi waayo adar way tashanayaan meel bay tagayaan laga doonayo meel bay tagayaan laga soo dhaweynayo meel bay dhisanayaan iyagu ay gooni u leeyihiin horeyna waa loo tijaabiyay reer awdal waxay dhisaan oo Soomaalilaanta aad maanta ku naalootaan ee adduunka dunida aad ka iibisaan ninkii dhisay baan ahaa ninkii doorashooyinka sameeyay baan ahaa ninkii adduunka luuqado kala duwan ku hadlayay baan ahaa ninkii adigoo kabna laalaadinaya guri bangala ah oo fadhiyaalo oo qurux badan ku fadhiisay baan ahaa tii tuka qurux badan baan dhisanaya Sakariina hadal baa leeyahay Sakariya waa nin reer Hargeysa magaca ayuu gada buursi ka yahay macnana uma sameeyo reer awdal intii uu joogay waxaanu maalin walba arkaynay in aad qaban jirteen shirjiraaydiyo macnaheedu waxay tahay adar ninkani waa gada buursiyana dhaafiya tiiba maanta socota Maxamed Damiiciis iyo doonistiisa hadii loo hagaajin waayo reer awdal way soconayaan laba reerood oo isgarab degan oo wax isweydiiyay mooyaane wax isku darsada noqon mayno hadii aad wax nagu aamini weydaana oo maanta sida ay xaaladdu tahayna aad tan waa lagu kala tagayaa halkan waxa isugu imanay dhamaanba warbaahinta gobolada awdal iyo Seleal runtii waxa halka aan la soo istaagnay wax kale ma waxa Hargeysa ka dhacay weey nimankan beesha dhaxay wadaan maalmahanba waa hoggaanka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja oo labadii sanaba mar uu isbedel ku dhaco runtii waxaan nasiib daraa maanta waynu 2023 marayno in haddana beesha dhaxa ay yiraahdaan wax walba naga ah waa 2023 oo wadankii isbedelay oo xaaladdu isbedeshay ma ururkii Soolja baynu haddana maanta soo qabsanaa waa yandar weey wax la qaadan karana ma wareeraha udal saxaafadoodu waa tashatay maanta waxaan ku tashanay haddii aanu hoggaanka ururka saxafiyiinta Soolja aanu qaadan weyno inaanu annaguna Soolja ka tashanno aanu dib uga fadhiisanno wixii aanu samayn karnaa waanu sameeynaa insha Allah taala waxa weey saddexdanina hadda la calaamadeeyay waan ognahay cid ay yihiin iyo beesha dhaxaynu in loo calaamadeeyay ka ugu horeeya ka xogayaha la yiraahdo beesha dhaxal loo calaamadeeyay annaguna ku xigeen la yiri ayad qaadanaysa war waxaas wax la qaadan kara ma war waxaan madina xishoonayn boort ku xigeenka halkan geeyna tii horeynu qaadan weynay hada waa heedhe waxaan ma garayno annagu ma garayno Soolja halkay marayso ma ogi runtii waa wax laga xishoodo weey waxaana xukuumadda faraha kula jirta kulay xukuumaddu meel walba faraha ugu jirtay way yani olashay saad arkaysan xaalad wadankuna waa ma garayno meel ku dambeyn doon war Soolja hadii maanta reer awdal hoggaanka la siin waayo oo ay xaq u leeyihiin Soolja meel dheer ba laga dandoonaya xaqiiqada la sheegay waxa weey aan horta kaarkii Soolja oo wataa maanta la yiraahdo ninka loo dhiibay intaan live soo galaan leeyahay aniga waan gubay oo adiga arkaya ama inaan kala jabiyo ama inaan dadka tuuraba marka walaalayaal waxa weey gudoomiyaha ururka Soolja kii hore Sakariina kala yiraahdo nin reer Maroodi Sheekh uu ahaayo laakiin reer awdal Hargeysa ku dhashay kaasana wax nabadgelyo ma ahayn laakiin ninka aanu hadda doonayneen wadana uu noo calaamadaysan yahay waa la yiraahdo Maxamed Sharbiyare waa reer awdal anagu kaad Hargeysa ka doorateen halka noo dhiga laakiin maanta doorkan aynu joogno reer awdal baa booskaas kale xaqna way u leeyihiin haddii aad kaga hor istaagaysaan shaar dawladeed iyo waxaynan garanayn reeshaqa uu kaaga sheekayn doona war waxaan ka daayay war ka daayay Soolja wadadii saxda ahayd lagu soo celiyaan leeyahay aad iyo aad baad u maashantiin sida warbaahinta gobolka uu sheegay maanta waxaan isku nimanay inaan ka hadalno mowqifka ay ka taagan tahay xukuumadda Soomaaliland doorashada hoggaanka ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soolja gaariye Allah naxariista waxa laga hayaa gabigiisii ahaa dhalaaraba ima doonta dadka Soomaaliya awooda dega raadcooda adkaato ilis lagu raasho Sool waa la waayay way tagtay awdal maanta waxa muuqatay ifaaladii gabigii gaariye ahaa in maalinta in dhalaar ima doonto awdal raadiyo haddii Sool ka bilaabantay in lagu dilay sabab noqoto in Sool ku tagto
saxaafadda Soomaaliland maanta waxay sabab noqon doontaa in gobolka awdal ka go'o Soomaaliland taa waxaan leeyahay reer Isxaaq ku biyo caba haday loo dooran waayo Maxamed Xasan Sharbiyeeri gudoomiyaha ururka saxaafadda Soomaaliland Solja awdal maanta waa la radin doonaa Soomaaliland waxa ka jira 8 urur aan dawli ahayn 8 ururba waxa gudoomiye ka in reer Isxaaq ma jira hal urur oo gudoomiye ka yahay qof gobolka awdal ka soo jeeda shalay toolaha hadii reer awdal ka cabanayeen saami qaybsiga siyaasadda maanta waxay maraysaa in reer awdal lagu aamini waayo urur ay ku jiraan wax ka yar 500 oo qof la yiraahdo ma hogaamin kartiin waa halkii ugu dambeysay taasina waxay cadeysay xukuumadda Soomaaliland maanta hadii dabada ka riixsan in kale ayadu oo waliba reer Isxaaq ay dabada ka riixsan ururka saxaafadda Soomaaliland Solja loo doorto waxay cadeysay in maanta reer awdal ay waxba oolin Soomaaliland reer awdalna waxaan leeyahay waa naga warsugi doontaan haddii ay dhici weydo in Solja loo dooran waayo gudoomiyaha Maxamed Xasan Sharbiyeeri waxaan u tagi doonaa meel aynu ku haboonahay oo la inaga sharfayo oo ka helna rabitaankayga oo ku filin doono damacay ayaan u tagi doonaa wabillahi tawfiiq annagoo warbaahintii gobolka Awdal maanta waxaan halkan iskugu imanay inaan ka hadalno markii labaad mowqifkayga ku aadan doorashada ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja oo ay farabaan ku hayso xukuumadda Soomaaliland taasi oo soo faragelisay doorashadii hoggaanka ururka iyadoo oo hadda la sheegayo in wararkana soo gaaray ay sheegeen in xukuumadda Soomaaliland ay gudoomiyihii iyo xogayihii qof u diyaarisay annagoo oo 5 bilood oo ugu dambeysay u ordaynay u ololeynay u kaambin gareynay madaxweyne ilaa wasiirna ula kulanay sidii aan ku helinay gudoomiyahaasina hadda warcad noogu tiri gudoomiye ku-xigeenkii qaata annagoo warbaahintii gobolka Awdal kulamo aan yeelanay maalmihii ugu dambeeyay waxaan isla garanay in gebi ahaanba aan diidno ama aan ka soo horjeedno doorashada ururkaasi ay faragelinta xukuumaddu ku hayso iyo gudoomiye wax ka hooseeya ka reer Awdal ahaan arrintaasi si aad ayaan uga soo horjeednaa waana diin waa mahadsantiin